kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono General Odowa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka oo la wareegay amniga degmada Balcad iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wajahan furumaha hore ee dagaalada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa Cali Yare Cali gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir wuxuu shaaciyay in shacabka Soomaaliyeed ayna mar uun heli doonin madaxweyne ka fiican farmaajo xildhibaanadii ka hiiliyana ay ka soo bixi doonto godobtii ay dalka ay ka galeen qodobada kale ee barnaamijkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wili wadaa beegsiga iyo xilka qaadista saaxiibada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta xilal muhiim ah oo gobolka Banaadir ka tirsan ayuu mas'uuliyiin ka qaaday waa kuwee mas'uuliyiinta xilalka laga qaaday barnaamijkeena ayaan ku faahfaahin doonaa waxa soo shaabaxday in wili Xasan Cali Kheyre uu maamulayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre sidee ayuu Kheyre wili u maamulayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha barnaamijkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh ayaan caawa barnaamijkeena saaxiibayaal aan ku eegi doonaa balse haddii ay tahay markii kugu horeeyay aad soo booqatay channelkeena waxaan ka codsanayaa in aad rukumato si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee halkan aan soo gelino mahadsanidin dhammaantiin caawa aan ku bilaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage ayaa la wareegay amniga degmada Balcad oo uu ku wajahan yahay saacadaha soo aadan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Odowa oo maanta mar sii horeysay gaaray deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ciidamadu wuxuu faray inay adkeeyaan amniga deegaanka Xawaadley iyo deegaanada kale ee hoostaga degmada Balcad maadaama degmada Balcad uu ku wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadaha soo aadan gaari doona furumaha dagaalka ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha ayaa ciidamada wuxuu ku amray in si weyn ay amniga u sugaan maadaama deegaanka Xawaadley iyo degmada Balcad uu ku soo wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud si uu kormeer guud ugu sameeyo furumaha ee dagaalada ay ka socdaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha ayaa Balcad haddii uu gaaro halkaasi wuxuu kula kulmi doonaa saraakiisha ciidamada dawladda oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada golaha shacabka ka tirsan oo Cusmaan Xaadoole uu ka mid yahay ee gobolka Shabeellaha Dhexe deegaano muhiim ah kala wareegay al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage ayaana sidoo kale amar culus wuxuu dul dhigay ciidamada beesha Abgaal ee khilaafku uu kala dhaxeeyo amarka uu dul dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka ciidamada beesha Abgaal ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Xawaadley iyo deegaanada kale ee Balcad hoostaga ayaa wuxuu yahay in deegaanadii ay la wareegeen ayna ka soo bixi karin amnigana ay adkeeyaan maadaama madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku soo wajahan yihiin degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage yaana amarka culus wuxuu dul dhigay ciidamada beesha Abgaal ee khilaafku uu kala dhaxeeyo wuxuuna faray maadaama ciidamadu markii ay Muqdisho ka soo baxayeen saraakiisha ayna kala tashan ay muhiim ay tahay in hadda amarkiisa ay qaataan howlgallada gobolka Shabeellaha Dhexena istiraatiijiyada lagula wareegayo deegaanada kale ee ka harsanna uu taliyaha uu bixinayo amarkan ayaa la sheegay inay qaateen dhammaan saraakiisha ka soo jeeda beesha Abgaal oo markii hore diidanaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage uu hogaamiyo howlgallada gobolka Shabeellaha Dhexe ka socda ee ka dhanka al-shabaab amarkan ayuuna Odowa wuxuu kaga aarsanayaa kadib markii saraakiisha beesha Abgaal ayagoona la tashiyo la sameyn ciidamadii ugu badnaa Muqdisho ku diyaariyay kana daadguray geeyana gobolka Shabeellaha Dhexe qodobada kale ee barnaamijkeena haddii aan sii faahfaahino gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo ka mid ah saaxiibada sida weyn u garab taagan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ka mid ah siyaasiyiinta ugu tunka weyn xisbiga nabad iyo nolol ayaa wuxuu shaaca ka qaaday arrin ay la kulmi doonaan
sannadaha iyo bilooyinka soo aadan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee ka hiiliyey doorashadii ka dhacday Soomaaliya. Cali Yare ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed weligood ayna heli doonin madaxweyne ka fiican Farmaajo sida uu hadalku u dhigay, wuxuuna sheegay in mar uun xildhibaanadii ka hiiliyey Farmaajo ay ka soo bixi doonto godobtii ay ka galeen dalka iyo sidoo kale guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Farmaajo waa madaxweynaha keliya ee ugu shacbiyada badan Soomaaliya, mana heli doonto Soomaaliya madaxweyne la mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ee aan la shaqeeyo, ayuu hadalkiisa intaa ku sii diray. Cali Yare Cali, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir oo aad u dura dowlad uu xil ka hayo, gaar ahaan dowladdu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cali Yare ayaa wuxuu ka mid yahay xubnaha baraha bulshada sida weyn kaga taageera dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo ee nabad iyo nolol. qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu weli wadaa beegsiga iyo xilka qaadista saaxiibadii hore ee madaxweyne Farmaajo. maanta mas'uuliyiin sarsare ayuu xilalkii ka qaaday iyadoo uu kula dagaalayo inay ka tirsan yihiin tiimkii hore ee nabad iyo nolol. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha racfaanka ee maxkamadda gobolka Banaadir sida lagu sheegay wareegta madaxweyne oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh ayaa xilka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir wuxuu u magacaabay garyaqaan Saciid Cali Maxamuud oo bedeli doona gudoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo saaxiib iyo sidoo kale siyaasi u dhawaa ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir u magacaabay garyaqaan Saalax Cali Maxamuud oo ka mid ah saaxiibada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. magacaabista xubnahan iyo xilka qaadista xubnihii hore ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marmarsiyo uga dhigay kadib soo jeedin kaga timid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed. tallaabadan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilalka uu kaga qaaday mas'uuliyiin si aad ugu dhawaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida uu dib ugu soo celiyey sareeyo guuto Liibaan Cali Yarow oo ka mid ahaa saraakiishii Farmaajo uu shaqada ka raacdeeyey sanadkii hore. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loo arkaa xilalka uu magacaabayo iyo sidoo kale kuwa uu xilalka ka qaadayo in uu ku bartilmaameedsanayo siyaasiyiintii hore ee sida weyn caleenta iyo geedaha qoyan ugu ruuxiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Xasan ayaa hore u ballan qaaday inuu isbeddel dhaba iyo dagaal toosa uu la geli doono siyaasiyiintii ku aragti ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna qorshahan u muuqdaa mid ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku baabi'inayso dhammaan xilalka ay hayaan xubnihii ka tirsanaa xisbiga talada dalka sanadihii la soo dhaafay hogaamin jiray ee nabad iyo nolol. qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena haddii aan faahfaahinno, maanta waxaa soo shacbaxday in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu weli qaab qarsoodi ah u maamulayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. dad badan ayaana arrintaasi la yaab ku tilmaamay. madaxa mashaariicyada ahna la taliyaha arrimaha siyaasadda ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Axmed Nuur Ulix ayaa bilaabay fulinta qorshe uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ku maamulayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. Ulix oo ah gacanta midig ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hadda ah agaasime awood badan leh oo daaha gadaashiisa ka maamulaya xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib markii la nuxuusiyey awoodda xogaayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. qorshahan halista badan uu bilaabay Ulix ayaa waxaa ka mid ah in uu bilaabay xiriir qarsoodi ah uu sirdoonka Shiinaha iyo Ruushka uu la yeesho asiga oo kaashanaya qaar ka mid ah la taliyaasha xafiiskiisa oo ka tirsan sirdoonka Shiinaha, taa oo xagaldaacinaysa
xiriirka wanaagsan oo dowladda Soomaaliya ay la leedahay Mareykanka iyo sidoo kale reer galbeedka. Arrintan uu sameeyay Ulux ayaa la sheegay inuu kaga dan leeyahay in Ruushka iyo Shiinaha ay saameyn adag ay ku yeeshaan gudaha Soomaaliya maadaama loolan adag uu kala dhaxeeyo dowladda Mareykanka. sidoo kale Axmed Nuur ayaa la sheegay inuu ka shaqeynayo difaacidda mas'uuliyiintii uu qeyre u dhiibay xilalka muhiimka ah si aan xilalkaasi looga qaadin oo lacaga fara badan oo ay lunsadeen oo mashaariicyo ay gacanta ku hayeen ay ka mid tahay lagu qariyo. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ah nin jilacsan oo aan fahansaneyn waxa ka socda hareerihiisa. Qeyre ayaana wado qorshe uu mar kale rabo in uu ku maamulo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. guud ahaan saaxiibayaal waxaa halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena caawa inta barnaamijkan kiisixiga aan ku kulmi doono. dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa in aad rukumantaan channelkeena si ay idiin soo gaaraan wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. mahadsanidin dhammaantiin.